wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada ayaa maanta gaadhay dalka Djibouti halkaas oo ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda kala duwan ee dalka Djibouti. safiirka Somaliland u fadhiya dalka Djibouti Ambassador Cabdifataax Saciid Axmed ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay wafdigan iyo inta ay Djibouti joogi doonaan. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland baa maanta wafdi hogaaminayo oo ka kooban agaasimaha guud wasaaradda arrimaha dibadda la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada. wafdigaas wuxuu joogi doonaa 2 cisho haddii la yiraahdo kulankooda ayuu noqon doonaa 2 cisho soo socota. xukuumaddana waa la kulmi doonaan haddii la yiraahdo runtii waxa loogu farxo waxay yimaadeen wadankoodii labaad oo qariibku ma aha Djibouti. Somaliland iyo Djibouti waa dad walaala labada dhinacba deegaanka wada dega oo wax badan ka dhaxayaan runtii waana wadankoodii labaad bay yimaadeen. walaal xiriirku aad buu wanaagsan yahay waad ka war haysaano xiriirku maanta ka wanaagsan yahay ma jirto wiiga hore wasiirkeeni waxa nala jooga arrimaha bulshada iyo shaqada oo odaygada sida wanaagsanada loo soo dhaweeyay. Djibouti wax badan baa naga dhaxay taariikhiyan aan ku sheego dadka halkan degan xaqaan way degan Somaliland oo dadka dad kale noo soo gurmad haday dhacaan abaaro haday dhacaan duufaano waad ogeedeen sida noogu soo gurmadeen marka waa runtii uliya diirkeed baan nahay.